فضيلة الشيخ عبد الرزاق حاشي حفظه الله إله سبحانه وتعالى ميزانك حسنات خوساره هدي أن كعلي محاضرة عنوان كذا وحاوي عيش مطمئنا كنا ولا نولد دقن تابعني هذو هاي قف والبوانا نعمل ذو حرة نولد دقن إنه كنا ولا مركزي فحسن أيو نقدر جدنا شيخنا إله سبحانه وتعالى ميزانك حسنات خوساره فليتفضل مشكورا وماجورا. وحنرى مركا موضوع ودور قيبات قيبت كوباد موضوع وحوي إن هرت التعريف إنه وحق قلق ليراد ولول كوحلنا ولول وامح انتو قلق كيبتو ولول كيبتو يوقف كي مسكحدي يسيبو دامج جرين يا أما قلبي يسيبو كنترول يا قف كي مركا هدو وسكول حياة وصلح الله يا مركا وحجارة يا ديبريشن إنه كل نقطة oo qofkii waxa la yiraahdaa marka cuntadii uu yareysanaya weightki uu dhuminaya miisaankiisa baa dhacaya hurdadii baa ku yaraanaysa noloshii farxadii oo dhan baa ka tagaysa wuu iska quusanaya noloshiisa wuxuu arkaa inuu baaba'san yahay uu arkaya waxa la yiraahdaa taas oo kale waa buufis waay dad Soomaaliya arag waxayo dhibaa ayna jirin oo ku dhahayo dhibaata ay haysato waxba ay haysto waxba ay dawso wiil dhalinyaraha intuu bardhaxaas yimid يوحوا الشيخ إن كل هذا الربع قصوا حائل هي واي كان إلى هذا قصوا حجري والله يتبص على يو FBI يو جروبيو يو دولة دا يتبص عطاء أنا نبى والله في سنة جاي ماشان هتان كل احتمال التربية أنا يجي سنة يعني بنانك إلى استاج هاي واي بنانك استاج هنا أنا وده بنانك مركز استاجني يوحوا الشبل وكان واحد قدار بكسور إيه مساعد قداش يسا ومري haddana dhinac kale aaday uu soo fiiriyay markaas soo noqdo uu yiraahday sheekh bar hadda waa meesha waa clear waxa ma joogaan ila hada qofkaasi wax daba socda iyo wax dhibaya midna ma jiraan waa buufis waay ka aabo waay waa qof intuu qalaqi ka batay markii hore dhibaata ku dhacday ogow hadaa uu raas qofkaas ka dhibaata ku dhacday dhibaatadii baa waxay damage garaysay wixii dakhilka naftiisa aha wuu baaba'ay marka asuu isma oga laakiin wuu jirhan yahay qofkaas oo kale waxaan rabaa marka caawa midda ugu muhiimsan oo ah waxaan qalaqa ku tilmaanay in aan bal daawo u raadino qalaqa sidiisa ikhwaani waa asaga laftiisa waa saddex qaybood mid waxaa la yiraahdaa alqalaq almatluub waa walwal sharciyan la rabo inaad walwasho waxaan iri ka sheekeeyay gabar dariskeena ahaan jirta waxay tiri gurigayga saddex dhari baa laga kariyaa saddex dhish baan kariyaa midka ugu horeeya oo ugu nutrition ka fiican oo ugu khatarsan ana karsado markaan ka isku taabta aniga oo aan khatar noqdo baan ninka wax u kariyaa markaas carruurta wax wal walaaqa waxay tii hadaan nafteeda keer garaynin soo mashiinki reerka aniga ma imaamulay ana hadaan anu daciif wax kasta way daciifayaan waa ina anu horta aan isku filaado xoog yeesho energy yeesho waa runteed